السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته guys waxal boo idinta oo wanaagsan hadii aad page joogtid waa Leela Nasraad hadii aad YouTube joogtid waa Kalson Cooking Channel waa isla ayadii ya waananisteedii magaceeda rasmiga oo Leela ah lix saac habeenimo iyo rubi lix saac iyo rubi in soo duubo fiidiyogan waxaan jeclaystay ina gabdhaha macnaheedu la wadaago waxyar oo hadalkan aan ku badinin oo 8 daqiiqo ilaa 10 daqiiqo gabdhaha la qabo oo marwooyinka iyo kuwa la soo guursan doono gabarey hadii lagu qabo oo ninkaada kibir iyo isla weynin iyo marka iskhilaaftiin gacan qaad iyo ka dareentid ninkaas waxa waaye ka fogo guriga hooyada iskaga laabo ninkuma noqdo waayo kaas ninkuma noqdo ninaan naxariis ku siineynin oo wanaag ku siineynin oo hadii xanuunsato kula xanuunsaneynin oo hadii aad baahato kula baahaneynin oo hadii aad murugooto kula murgooneynin kaas ninkuma noqonayo ninka haduusan mar walba iska faraxsaneen oo farxadii xataa oo murugsan yahay agtaada waa inuu farxad ku siiyaa telefoon ay soo galeen hadii aad murugsanta xatee waa inuu farxad ku dareensiiyaa waa inuu murugtiisa ka qariyaa ma fahamtay hadii kale duu yahay nin ku gacan qaadayo hadii iskala waxay isdhahdeen darbaxada ka soo horeyso kaas waa kii ku dili lahay bilis ninaan ku naxariisanin hadii aad 15 sano isqabtiin xitaa 30 sano isqabtiin haduusan qof naxariis la ahayn kaas ninkaaga ma ahan kuma qalmo kuma geeyo bilis iskaga laabo guriga habartaada naxariis iyo kalkacali kooliska helaysa ma fahamtay weliga murug iyo ciil iyo ha ku noolaanin bariya ka bixi doonta ciilkan waayo ciilka ninkaaga ku ciilay weliga kama bixaysid ma fahamtay ciilka in aadan kala ku ciilaan waa ka bixaysa laakiin ciilka ninkaaga ku ciilo kama bixaysid waayo wuu ku weynaa ma fahamtay sheekadan waa ku sii badanay laakiin gabarey digtoono ninkan haduusan mar walba nin naxariis lahayn mar walba horta bini aadan leeyahay mararka qaar waa la iska xanaaqa laakiin ninka soo laabashadiisa oo sikin tahay haduusan ahayn biliiskaas ninkaaga ma aha waa kii ku dili lahay ka fogow ma fahamtay teed kale waalidka hore waxay dhihi jireen ilaahu gabdhaheena waraabaha naga siinin ilaahu gabdhaheena waraabaha naga siinin waraabihii bahalka ahay maahan ee ragga qaar waxaa ku jiro niman waraabaha oo kale oo dadka cuno marka iska ilaaliya ilaahayna guurka idin hagaajiyo intuu u hagaagsaneen ilaahay u hagaajiyo inta had kadib guursanaysan ilaahay guurka u hagaajiyo biidnillaahi kariim marka waxa idin dhihi lahay waxa jiro waraabo haddana nin iska jira ninkan mar walba haduu ku ciilo haduu murugtaada jecel yahay hadii aad murugooto haduusan kula murgooneynin oo ku soo wiceynin oo haduu kula joogana oo ku sasabeynin oo maxaa la waxaas kala jecleen kaas wuxuu soo wada iyo wabiga weyn ya wuxuu soo wada iyo wabiga gabar arkaysa waxay ku leedahay nina ay qabo oo ciila muruga ku noolhay amu mar walba oo sabra waxa isleeyahay amu saanksi soo wanaagsanaada mana soo wanaagsanaano ma soo wanaagsanaano ma abbaacagahaada ku baxso bariis guriga hooyada aad de hooyo aabo ku nooleen guriga walaalaha ku dhaam meelaha deganaan ku dareemin naxariis ku dareemin oo hurdabacaan ku dareemin nolol kuma taalo naftaada been ha u sheegin ma fahamtay naftaada been ha u sheegin ilaahay wuxuu naftaas yarta ku siiyay ina ku raaxaysatid inta yara ilaahay adduunku ku keenay oo macnaheedu ku noolow ku dhahay ina ilaahayna ku caabudid oo ilaahay maxaa la dhahay ku baridid adigana naftaada aad ku raaxaysto ilaahay haddana waxa u maleynaa hadalka idin ku dheereeyay karaali noqda
marka waxaa hadalkan uu muhiim u yahay gabdhaha xaaslayaasha ah iyo kuwa lasoo guursan doono. marka dhammaanteennaba ilaahay meel wanaagsan ha noo kaso. kuwa guryaha joogan ilaahay guryahooda ha u hagaajiyo. kuwa hadda kadib guursan rabana ilaahay guurka ha u hagaajiyo. kuwa ay xaaladda ka qasan tahayna ilaahay ha nabad ha dhex dhigo. kuwii farxad ku noolaada ilaahay ha ka dhigo. asxaab cusub ay usoo biirtay waxaa laga kusoo dhawaada gacmo furan, qalbi saafi iyo walaal idin jecel. dhammaantiin sharaf iyo karaamo korkiina ha ahaato. waa xanuunsaday maalmahan, waa mashquulay, youtube wax ma soo dhigo. marka isoo duceeya biidnillaahil kariim. inta xanuunsan ilaahay caafiyo, inta murugsan ilaahay murugta ka dulqaado, inta caafimaad qabtan ilaahay u siyaadiyo, inta faraxsan ilaahay farxadda ha u siyaadiyo, inta awlaad haysata ilaahay u barakeeyo, inta haysanin awlaad saalix dayibiin allah siiyo biidnillaahil kariim. dhammaantiin waxaa idinkaga tagayaa nabad, caafimaad, bashbash iyo barwaaqo. haddana intaa fiidiyooga mid lamid ee ku kulmeeno 6 saac iyo 30 daqiiqo hadda ku dhacdee, waxaa idinkaga tagayaa beedka follow soo dhaha. youtube hadaa joogtiin subscribe soo saara. ma fahanteen? waxaa waaye waa iliideen, hoosa igeyseen, ficaya iga reebteen, laakiin dhib male waa idinku qaatee. bal kheyr aa idin rajeynaa. intaa fiidiyooga mid lamid ku kulmeeno. sidaas nabadgelyo. bye bye.